kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawada inaga daawata ee ku soo dhawaada barnaamijka wararkii iyo warbixinadii ugu dambeeyay xaaladda waddanka hooyo ee Soomaaliya hadahan oo kaleeto boggeena YouTube-ka aad ka daawataan fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay subscribe tahay laabin gambalelkana furo si aad u noqotid qofka ugu horeeyo ee hela wararka iyo warbixinadan halkan soo galino dhammaantiin waad ku mahadsantihiin sida markasta aad inoola socotaan warbixinteenan waxaan ku hormari doonaa in xaaladda iyo wararkii ugu dambeeyay weerarkii lagu qaaday xabsiga dhexe ee Hargeysa iyo suxufiyiin ama wariyaal hor leh oo la xiray kadib ayaan isla eegi doonaa safarkii Muuse Geele oo ku tagay Abaydhabo iyo xogo hoose oo soo baxaya in la socdo daawade horaanta ilaa iyo dhamaadka aan ku horeeyay waxa faahfaahin kala duwan ay ka soo baxayaan rasaas culus oo goorsi horeysay laga dhex maqlayay gudaha xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa rasaas oo si weyn looga maqlay gudaha magaalada ayaa waxaa la sheegayaa inay ka dhalatay kadib markii qaar ka tirsan maxaabiista xabsiga ay gadoodeen isla mar ahaantaana ay rasaas bilaabeen wararka qaarna sidoo kale waxay sheegayaan in maxaabiistaas ay gacanta ku dhigeen hub iyo rasaas taasina ay keentay israsaaseen dhex maraysa iyaga iyo ilaalada xabsiga ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Somaliland ayaa isku hareeriyay dhammaan jidadka ka soo baxa xabsiga dhexe si looga fogaado inay xabsiga ka baxsadaan tiro ka mid ah maxaabiista booliiska ayaa joojiyay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ee jidadka u dhow xabsiga ilaa haddana si rasmi ah looma oga waxa ka socda gudaha xabsiga sidoo kale waxay ciidamada booliiska xabsiga dhigeen ku dhawaad 6 wariye oo ka tirsan warbaahinada kala duwan ee Somaliland kuwaasi oo tibin toos ah kaga jiray agagaarka xabsiga ay shaqaaqada ka dhacday xukuumadda ayaa gabi ahaanba warbaahinta madaxa banaan u diiday inay ka soo agdhawaato agagaarka xabsiga si ay u tabiyaan waxa jira iyada oo telefishanka ku hadla afka dawladda uu yahay kan kaliya ee loo ogol yahay in siday xukuumadda rabto u tabiyaan xaaladda halkaasi ka taagan ammaanka xabsiga weyn ee Hargeysa ayaa si aad ah loo adkeeyay waxaana ku sugan ciidamada gaarka ah ee RRU-da ciidamada booliiska iyo ciidanka asluubta iyada oo gudaha xabsiga uu ku jiraan wasiirka arrimaha gudaha iyo saraakiil kale ma jirto maxaabiis ka baxsatay xabsiga ilaa hadda inta la og yahay wixii soo kordhase wararkeena kale ayaan daawada idinkugu soo gudbin doonaa haddii Allah uu dalo raali ka noqdo fadlan halkan isha ku hay si warbixinadaasi daawada aad ula socotid markana waxaan isla qaadaa dhigi doonaa safarkii Muuse Geele iyo xogo markaas laga helayo macquul ma tahay in saddexda kursi ee koonfur galbeed la fasaxo halka midka Hirshabeellana lagu dhago haddii heshiis ay wada gaaraan Muuse Geele iyo sidoo kaleeto maamulka koonfur galbeed gudoomiyaha guddiga doorashada ee heer federaal Muuse Geele iyo xubno la socda ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee gobolka Baay halkan waxaa jooga 74 mudan oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo diidan sida guddiga doorashada uu wajahayo gunaanadka doorashada gaar ahaan 3 kursi oo maamulkan looga dhagay guddiga doorashada waxaa ku socda cadaadis caalami ah oo la xiriira in kuraastan ay fasaxaan si aanay doorashada u sii daahin Muuse Geele wuxuu ku socdaa in koonfur galbeed ay ka wada hadlaan xalka kuraasta sida guddiga uu xaqiijiyay laba doodood ayaa aad ugu dhow miro dhal mid waa in 3 kursi ee maamulkaas la wada fasaxo midna waa in 2 kursi la fasaxo kursiga kaleetana doorashadiisa lagu laabto waa kan sareedo guddigani taageero badan kama haysto koonfur galbeed hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen wuxuu dhawaan sheegay in guddigan laga qaaday madax banaanidii iyada oo xafiiska ra'iisul wasaaraha uu ku eedeeyay in xitaa akoonnadii baraha bulshada ee guddiga uu la wareegay Laftagareen waxa si weyn cadaadis u saaraya safarada Britain ee Soomaaliya maadaama Ingiriisku mashaariic badan ka taageero waa koonfur galbeed safarka maanta ee gudoomiyaha guddiga doorashada Muuse Geele ayaa xubnaha qaar rajo ka muujiyeen laakiin walaaca qarsoon wuxuu yahay in dhanka Villa Soomaaliya ay ku cadaadinayaan Laftagareen in dooda lagu daro kursiga Fahad Yaasiin kursigaas oo Hirshabeelle laga soo doortay ayaan wax difaac ka haysanin maamulkiisa oo wali ku mashquulsan gunaanadka doorashada waa Hirshabeelle Fahad Yaasiin wuxuu dhawaan dacwad u qortay maxkamadda sare ee dalka isaga oo doonayo in kursigiisa ay fasaxdo maxkamaddu waxay qoraal u dirtay garyaqaanka guud ee dawladda qoraalkaas oo ay ku dalbanayso jawaab 2 maalin ah
laakiin xafiiska garyaqaanka guud wuxuu dalbaday waqti dheeri ah dacwadda oo la soo dhammaystiro iyo in uu wareysto guddiga la soo eedeeyey. sharci yaqaanadu waxay sheegayaan in arrintaasi ay muddo qaadan karto maadaama uu Fahad Yaasiin dacwad aaday. kuraasta hadda la rabo in xalka siyaasiga ah laga gaaro laguma dari kara ay ku doodayaan qaar ka mid ah sharci yaqaanada. guddiga doorashada iyo xafiiska ra'iisul wasaare Roble waxay haystaan sabab ay kursigan dib ugu sii dhigi karaan maadaama uu kursigaasi aaday dhanka sharciga ah iyaga oo fasixi kara saddexda kale. sidoo kaleeto dadka qaar waxay sheegayaan in sababta uu Fahad Yaasiin horeyba u sii aaday maxkamadda inay ahayd inuu sii ogaa in saddexda kursi ee koonfur galbeed la fasixi doono kiisana lagu dhigi doono. sidaas darteedna waxa uu doonayaa in maxkamadda ay soo saarto amarkaasina ay ra'iisul wasaaraha diidaan ama haddii ay diidaanna in sidaasi arbushaad iyo qalqal hor leh uu markaasi abuurmo, taasoo micnaheedu tahay in ra'iisul wasaaraha haddii uu diido sharciga in Fahad Yaasiin isagana sharciga uu diidi karo isla markaana uu baarlamaanka iska xaadirin karo. sidaas ayay leeyihiin dadka qaar oo si weyn ula socda arrimaha siyaasadda oo iyaga ku doodayo in Fahad Yaasiin uu markii horeba sii ogaa in saddexdaas kursi ee koonfur galbeed la sii fasixi doono kiisana lagu dhegnaan doono. si arrimahaasi uga hortagana uu sii aaday maxkamadda. haddana uu og yahay waxa ka soo bixi doona koonfur galbeed inuu yahay in saddexdaas kursi la fasaxo isaga kiisana lagu doodo in maxkamadda uu jiro oo hadda aan la fasixi karin maxkamaddana laga sugi doono go'aanka ay gaarto. baydhabo waxaa weli ku sugan hogaamiyaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor kaas oo lagu eedeynayo inuu xal u raadinayo kursiga Fahad Yaasiin. haddii koonfur galbeed loo soo bandhigo xal ku kooban kuraasteeda ma cadda in ay diidi doonto iyada oo Fahad Yaasiin ay u raadinayso xal, laakiin waxaan qarsoonayn in uu cadaadis ku socdo. kursiga ugu dhibka badan ee goobta yaalla waa kursiga Fahad Yaasiin kaas oo dagaal siyaasadeed dhexda uga jira. ra'iisul wasaare Roble iyo kooxdiisa waa adag tahay in lagu qanciyo in kursigan ay ka foqaan walow ay wajahayaan cadaadis caalami ah oo dalbanayo in dhammaan kuraasta la fasaxo iyo in doorashada degdeg lagu soo afjaro. rajada ah in kuraasta la wada fasaxo waa yar tahay sida ay sheegayaan dadka arrintan sida dhow u la socda, waxaana isha lagu wada hayaa sida Qoorqoor iyo lafta gareen kiiska Fahad ay u furdaamiyaan maadaama uu maanta baydhabo la joogo guddoomiyihii guddiga doorashada ee fiid. adiguna fikradaada qaybta hoose daawadayaal inagula wadaag in Fahad Yaasiin ay u fiicneyd inuu maxkamad aado isagoo ka hortegayo qorshaha maanta bilowday ee lagu doonayo in lagu fasaxo saddexda kursi ee keliya ee maamulka koonfur galbeed halka kan kaleetana la doonayo in dib loo dhigo sababa la xiriira in kooxda Roble in ay yiraahdaan kiiskan waxa uu yaalaa maxkamad sidaas aawadeedna maxkamadda ayaa laga warsugi doonaa inkastoo maxkamadda qudheeda go'aanka ka soo bixi doono oo la sii og yahay uu noqon doono mid Fahad Yaasiin la safan. ma isleedahay Fahad qorsho Roble uu soo waday ayuu sii ogaa uuna ka hortagay? qaybta hoose inagula wadaag barnaamijkeena ama qaybta hoose inagula wadaag daawada fikradaada ku aadan qodobkaasi. markana aan ku soo gabagabeeyo barnaamijkeenan midowga Afrika oo markii ugu dambeysay ka guuleystay ra'iisul wasaare Roble ka gadaal markii Roble ugu dambeyn cadaadis xoogan oo la kulmay uu furay xaruntii uu markii hore xiray oo ay ka soo digi jireen diblomaasiyiinta ee garoonka Aadan Cadde ee Mofco. daawadayaal wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya ayaa goorsii horeysay waxa ay dib ugu fasaxday in la furo terminalka la yiraahdo Moficon ee ku yaala garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kaasi oo si gaar ah loo isticmaalo. wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa xiratay maalmo ka hor terminalkaasi isticmaalkiisa ka gadaal markii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu soo saaray warqad uu wadanka uga ceyrinayo wakiilkii midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madiera maadaama terminalkaasi uu yahay mid ay si gaar ah u isticmaalaan xubnaha ajnabiga ah ee imaanayo magaalada Muqdisho waxaana uu doonayay ra'iisul wasaaraha inuu ka hortago imaatinka Francisco Madiera oo iminka la fahamsan yahay in meel ka baxsan dalka uu ku sugan yahay siiba magaalada Nairobi ee wadanka Kenya.
hase ahaatee cadaadisyo badan oo uu Roble la kulmay maadaama terminalkaas ama qaybtaas ay isticmaalaan diblomaasiyiinta ayaa waxa iminka ay horseeday inuu furo, taasi oo ka dhigan in iminka Francisco Madeira xilli kasta uu dalka soo caga dhigan karo marka la fiiriyo ama marka la eegoba in xaruntaasi iminka dib loo fasaxay ay tahay meesha kaliya ee diblomaasiyiintu ay ka soo galaan wadanka. daawadayaal intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka warbixinadii ugu dambeeyay xaaladda wadanka hadahan oo kale tobogeena YouTube-ka aad ka daawataan ee nabadgelyo.